hadda bal waxaan u galaynaa xagga dhanka Soomaaliya waxa jirta haddaba iminka ciidamo ka socda Djibouti oo xagga Soomaaliya amnisoon ka tirsan marka waxa dhacda in gobolka Hiiraan ay joogaan qaarna ay ku geeriyoodaan oo dad aanu hangaranaya khaas ahaan oo cali subax joogay ay ku dhinteen oo nin Allah u naxariistay meydane ajudan meydane uu ku dhex jiro marka haddaba maxaa ugu jira haddaba Djibouti ciidanagiisa Soomaaliya horta ugu horeysa waxaan doonayaa horta inaan u tacsideeyo ilaahay maartay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhalinyarta xagaa ku dhintay iyagoo askar bay ahaayeen dal walaalaheena iyo dad walaalaheena u tageen heel qaran waxa loo yidhi inay u heeliyaan oo dhibaatada ay ka baxaan laakiin waxa nasiib darro ah mashruuca dhalinyartaasi loo geeyey mashruuc waxa weeyaan dowladda annaga naga waaweyn ay wataan dalka Soomaaliya lama rabo inuu sidii hore ku soo noqday waayo dadka Soomaalidu marbay gacanta ku hayeen taladooda maanta taladooda ka baxsan yahay maxaa ku tusaya ciidanka ciidanadeena iyo ciidanada kale Soomaalida iyo dadka kale xitaa Afrikaanka inay halis la gelinayo waxa ku tusaysa markii meel la dooray in la galo ninkii la ciidanka watay baa sii sheegay anigu askari ma noqon wali laakiin common sense wuxuu leeyahay beritoole bay dhaba galayda beritoole waxaan weeraraynaa subax hore burxakaba intuu u yeedho saxaafadii maxay ku tusaysaa taas war ka sii bax bay ka dhigan tahay ka sii dareera marka qoladii haysatay baa ka sii dareeraysa taha ilaalin la yiri bari baa ku soo weeraraya laakiin hadda doonaysa wixii inaad abad kaga taqriso dhamaysid bahawshi ya weerarku waa weerar waxay ka dhigan tahay inaad sir waa inuu sir ahaada muwaadare waxa imanaya casualty-ga xitaa dhacaysa iyo uu yaraanaya laakiin marka lagu soo eeyo god baa lagu galaya god baa lagu galaya marka hadda waxaad u malaynaysaa haddaba askartii haddaba de weerarka soo qaadis maadaama ay sheegeen weerar qaadayaan in khasaariyaha ku badanayo aad buu ugu badanaya teeda labaadna iyaga sheekadu way ka sareysaayo lama doonayo mashruucan inuu dhammaado waxaa la doonaya in la dheereeyo mashruucan Soomaaliya inay sidaa u ahaato ciidan badan lagu soo gurto ciidankan Afrikaanka amiso lagu leeyahay de UN ta lacagteeda bixisa UN waayo boqolkiiba 60 Mareykan baa bixiya marka siyaasadda baartay kala fulinayaan UN ta haddaba UN ta ka dhawaaqashay UN ta ma la aamini karaa UN haddaan dib ugu soo fiirsado markii Patrice Lumumba هاي إسقطتين هذا بارنتي بلجي قومنيمدا قوميسي بلجيك كوبي لحدك يا وحو يا يو أنت يو أنت هذا بوحة كم هذا عيدا مدة يو أنت دل كم كندا كواسنا وحياة كوي هذا دبعت هذا يديل كوه هرسادي باتريس لومومبا يا ساعتيس مركب الأميني كره هذا با يو أنت برجع قضية مدحضك سكرتير جنرال كان حرم شق يعني ما قاعد يرى أذك بولها وحنا إنه from Sweden هذا جعلها ولا دي ليه يسوي ديار ده الوقرحيبة UN تورتا وح لا أمني كراب معها UN تو إمك واحد نقطة international bureaucrats لما كان أفريقيا كيو على بتالت كشقويلا بقوا شقة تجي مل سياسة أي لو وطو أي لما كان كل شيء غير قلبتك سيدنا UN تو لو أمني كرا security council واحد أبغى council security وشنط الضل وليبا صدح الضل مريكان يا فرنسيسي إنجليزي الدنيا خربها أو بوليتيكي مارتي برعد نمذي بوك أولا إلى واحد الضل واحد أو يلا جبابه كوال جبابه ما تقنا غاز كلا جبابه يو كوال الضل يعني وهذا واحد سوق اللي سكولا كاركي أحمد جامي مدحوينها جامبيا سو كلامه يعني يسوي سياسة دي سبوا أورا كروا سياسة بيرفكتة لكن وكي شيء نبى يبدو يجي ودكين أويل كلا جهله بقولك بس صدق باكوسي بقولك بس شبع كوسي ليا ويجي لي مراد نصيب والله ده قارب الله بيه صدق سيدنا وروتي سواء كتزته ودنا أفريقيا كأويل كلودن بترول كلودن هاي بوفر ليه جابون كوغو برازافيل تشاد غينيا إكواتوريال هاي نيجيريا wadannada Afrikaanka madowga u fiirso petrol hadii gas hadii leeyihiin waayo been baa laga guranaya haduu hadlo la afgambinaya dalka Niger u fiirso dalka Niger uraniumka Faransiis avera la dhaaba haysta dadar waa pur weeyaan laakiin iyagu haday isnidaamiyaan
idan markaa shicibkaaga soo jeedo ee shicibkaagu soo jeedo laguma gumaysi karo dalkana lama dhici karo ma shicibkooga kiciyaan dee qofkani markuu haddaba hadduu doonayo inuu meesha sii joogo powerka dhibaatadiisay tahay oo weakness weyn weeyaan waa halis febles weyn buu leeyahay shicibka si dhib yara lagugu kicin karaa waayo nimankan hawlahooga dad geshid hawshaa ma geli karto waxaad i xasuusisay congo brazzaville madaxweyne loodhan jiray pascal lasuba wuxuu ku helay election buu ku helay elf baa nuugta iminka total elf waa kuwa isku tegay boqolkiiba iyagaba waxaa la siiyaa ayaa la sii jiray maaragtay siduu isagu sheegay madaxweynaha jaraaidku sheegay dhowr iyo sagaashankii boqolkiiba 13 buu yiri waxbaad ka bedelinaa ma keenay buu yiri ninka idina total haysta iska daa madaxweynaha faransiiska kolkaa shiraag madaxweynaha yaa iga yidhi buu anaga madaxweyne kaa dhignay hamoodi vote kale beenta anaga imkaan anaga kaa qaadayna pascal ninkan iminka sesay keso oo uu ka badiyo tuulo fadhiya baa shadad lacag u buuxda loo geeyey marka laakiin isagu shicibkiisa hadduu bisleeyo saas ma u dhici lahayd dee uu degdegay waqti gaaban isagooba isagoo in badan joogin buu yuu degdegay dadka raggan way kula socdaan wari haddeer ka hadlay maraykanka hud kastay kugula jiraan markay dalkaaga soo galaan waxay og yihiin waxay galayaan ciidankaagii bay ku dhex jiraan dad bay xitaa qortaan waxay qortaan mataqaanaa shaqaalahaagii bay ku dhex jiraan sheekada nimanka beenbeenta jibuuti maxaad moodaa ateliyihii marka dadkii bay eegayaan dadkii baa la dhex garanayaa la qoranayaa way kala doortaa way kala yaqaaniin aniga kula hadlaya jibuuti joogay aniga kula jibuuti jooga dad saaxiibada kula jooga maxay kuu qori lahayn laba erey markaa isweydaarsano aniga kula hadlaya USAID-ka markii qoraysay naag madow waxay weliba anoo yar baan ka imid tan afrikaanad baa USAID-ka haysatay qolamaa taygatay ha markaan u tegay u geeyay CV-gaygii ama resume-gaygii iyo wixii oo dhan aan u geeyay kulanay waa interview ya umada qolamaa tahay haddaan ku weydiiyo anu qola weliyo mankay marka mayna qolo kugu qortay doonaysa faylkay kuu samaynayso maya waxay doonaysaa channelkayga rabtaa markaabay tiri oday bay soo ka yileahayd maaragtay intaa dad ka keenaysa dibadda dadkii wadaniga oo waxbartay baa jireen ninkanba maad qaadatiin abukay markay tiri maxaad isku tiiri isaga maxaad ka wadaa baan ka heli meesha ma interrogation baan imid interview baan imid maxaa dhacay markaabay iga tiri maya maxaad ka qabataa madaxtooyda volunteer baanaan ka heli waan u volunteer garaya ma arag bay tiri qof reer Djibouti volunteer sameeyay I'm the first one man everything is first marba waxba kugu horeynay marka qabiilkaaga doonay ogaadaan marka waa shaqadii basaasnimada yes ha waxa hadaba ku soo noqonaya hadaba shaqadii basaasnimada anigu dhikala waxa lagu dilay hadaba kaalkacayo toddobaadkan dhexdiisa laba sargaal u shaqeynaysay jimciyada quramaha ka dhacaysan baa UN talayda marka hadaba badi waxa dhacda hadaba sirdoonku inay hadaba isticmaalaan UN-ta ma la oran kara hadaba dadkaas waxay dhici karaan inay sirdoon ahaayeen way ku dhaxleeyeen de kuwan anu ma garanayo ilaahay baa iga garan labada iba keenay sirdoon ahaayeen laakiin waxa ku cadayna berigii Ciraaq intii la garaacay kuwii nuclear-ka baariya la oran jiray de qaar baa ku dhex jiro lagu dhex turtay iyaga ba sheegay groupkii la socdaa sheegay qaar baa ahaa sirdoonka Mareykanka ahaa marka hadad ay tahay hay'adaha marka hadad waan gartay marka hay'adahan ay ku dhex jiraan samafalka oo qalba inay meel tigaan bay rabaan marka bal UN-ta adu sheedu aragtaa ariyo waxaan u arkaa UN-ta waa golo loo isticmaalo reer galbeedku isticmaalaan danta siyaasadeed ay rabaan waa kuwa maanta ku fashilmay de arrinkan Crimea ku fashilmay Crimea Francisco Crimea uu iminka Ruushku kala go'ay Ukraine waa kuwa ku fashilmay